السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan mar kale saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan. Halkani waa Mustafa Show, aniguna waa Mustafa. Ku soo dhawaada qaybtii afraad ee taxanaheennii malabka ama malabkiiba soo dhacay. Waxa qoray saaxiibkay Cabdalla ayaan la arsan oo ah qoraadigan dalka Jarmalka. Waxay qaybtii saddexaad inoo joogtay iyadoo inantiina ay farxad ku tagtay isla markaana jawaab ay ka sugayso isaguna oo u soo kictimay dhinaca iyo goobta ay ka baxaan gaadiidka dadweynaha isagoo doonaya bal jacaylkiisii ka xanaaqday ee gabadha kale ku aragtay xaaladeedu waxa ay ku sugan tahay. Okay, waa hagaag. Haddaba qaybta afraad intaynaan guda gelin haddii aad ku cusubtahay barnaamijka fadlan nagu soo biir isla markaana la wadaag saaxiibada iyo asxaabtaada su'aalaha halkan qaybta afraad ku dhex jirina bal adigu caqligaaga kaasho oo yamaad gaarsiinaysa su'aalo badan oo dhowr iyo 10 su'aaloodaba ku jira oo labada dhinac midba midka kale uu weydiinayo. waxa uu yiri Cabdalle baskii xafadeeda nabarkiisi waan ilaaway nasiib daro inta badan anaga oo iyada wada socona ayaan gurigeeda tagi jirnay oo iyada ayaana waday aniguna iskuma mashquulin jirinba baska nabarkiisa goobtu ka baxay xilligu baxatoona laakiin nasiib wanaag waxa aan xasuustay in maalin WhatsApp-ka ay igu soo dirtay baska xafadeeda taga nabarkiisa maalin anaga oo la jooga gurigeeda oo ay cunto noo sameynayso ayaan suuqa alaab uga doonay si aan alaab u soo iibiyo waxaana weydiiyay waxa aan soo raacayo waana ii soo qortay laakiin waqti hore ayay ahaydoo in la baaro ayay u baahan tahay waxa khasab noqotay inaan baaro waxaan rabaa inaan si kadisa ugu tago meelaha basaska lagu sugo baan fadhiistay kadibna fariimihii ayaan dib u raacay labadaydana dhex maray muddo ku dhow 6 daqiiqadood ayay iga qaadatay inaan gaaro isla markii maalintii ay ii soo qoraysay baska xafadeeda taga lucky baska xafadeeda taga waxa uu ahaa baska nambarkiisu yahay 106 ama 103 alla waabu taagan yahay waan isla booday oo cararay si aan baska u gaaro waan gaaray laakiin cabaar baa soo ordayay oo waan neeftuuraya kursi cidlaah baan eegay laakiin waa la wada fadhiyaa inaan mid laba qof la fadhiisto iyo inaan iska taagnaado baan kala doortay inaan iska taagnaado ayaan door biday sababtoo ah xaafaduba waxay noo jirtaa 13 daqiiqo iminkana 8 daqiiqo ayaa ka dhiman gurigeeda inaan gaaro madaxu aad buu ii kacsan yahay oo xaalad dawqa baan ku suganahay buu yiri maankaygu su'aalo ayuu odayga soo qaaday marka aad u tagto maxaad oran iyadu se maxay kuugu jawaabi أول ما حد عي هالكيد وحكى بيلعب دونتا هرت جورجا مكافر يسا بلن كي أروس كي نبيلي وحكى لي من أقوله وحكى يصدح بلاد بلدن اللي يدي صادر ريم حياة هيد حدان جبر دنبي أول على التنمو إيوه حيالا نوع عسى عن كلاه اللبيلي جبرنا أنك على كعسي إن كاره كود عضو أوكي عبدالله aniga waxa saddex dabaalanaya baskii xaafadeedii soo hor joogsaday albaabka ayaan boobay oo dadkii ayaan sii jiray macal kuwa iga horeeyay iyagoo isiicaaya ayaan maqlayay macal madowgan xun iyo erayo cusureed ku jirto ayagoo iga soo daba tuuraya maana nin waxaasi wax ka tarayaan ba ahbu yiri hatta hadii Jarmalka oo dhammi igu mudaharaado waxa ay haysta mar kale ayaa igaga culus waana sii ordaya ilaahay haddaan garanayo yiri macal gooran orodka bilaabay qaabkii aan u bilaabay iyo halkii aan ka soo bilaabay intii yareyd ee guriga iyo meesha baska aan kaga degay orod baan isdhigay albaabkan taaganahay ma garaacdaa jiliska mise wad ka daysa horta xiiq jiro ama xiiqdu ha ka yar baado ee naso waa qaboobe oo dadka qiiqaya afkooda ka soo baxaya qabowga jira dartii aniga dhidid baan iska qalajinaya iminka oo waxaan maqlayaa hello qof igu leh soo isma ogi ee jiliskii baan taabtay oo iyadii ayaa ila hadlaysa waa aniga xabiibi ee iga fur albaabka ayaan ugu warceliyay ilamay hadal mar dambe laakiin waa iga furtay dabaqa shanaad ayay degan tahay oo wiish yar baa la fuulaa jaranjarada ayaan ban anigu xaggeeda u dheereeyay oo jaranjaradii baan orod ku fuulay sidaan u ordayay ayaan daf idhi ama wajaf baan soo idhi sidii wax waalan sidaas bay ii eegtay ilamay hadlin aniguna daaradda dhexdeeda baan taaganahay iyaduna hortayda ayay taagan tahay midkaayama mid buu la yaaban yahay laakiin iyadu sidaan hore idinku sheegay way iga kalsooni badan tahay aadna markasta way u degan tahay way soo dhaqaaqday oo hortayday soo istaagtay kadibna jaakad weyn oo aan xidhnaa ayay badhamada iga furtay anigoo dhididku iga tifleeyahay oo waan fuuq baxay macal in duuf la socda xataa markaa ma qiyaasi karo waxaan ku war helay jaakadii oo layga bixiyey oo meel la suray war balqolkaasi fadhiiso kabaha iska bixi jaakadana halkaa saaro waxaan isleeyahay bal may kabaana kuugu darto ayaan niyadda ama si hoose anigu isleeyahay dawacadii farta loo taagay fanaxa buudabu noqday markaan kabihii baan iska saaray kadibna qolkii baan hore u galay qolka sariirna farax baa taala iyo kursi ay laba qof ku fadhiisan karaan oo ah kuraasta fadhiga gurigeedu waa qol kaliya
jikada iyo suuliga ayaa intaasi dheer waxaan fadhiistay kursigii anigoo aad u tabcaan ah iyada jikada ayay ku jirtaa waxaan isweydiinayaa halkii aan wax ka bilaabi lahaa iyo sidii aan wax u bilaabi lahaa labadaba markaan iyada idinka aqaana buu yidhi soo dhaweynteeda iyo isla xisaabtankeedu waa kala laba iskuma xidhna si wanaagsan bay kusoo dhaweynaysaa laakiin haddii si hadhow si ayay kula xisaabtamaysaa waan sugi kari waayey buu yidhi oo aniga fudayd ayaa aakhiradayda isiijinaya waan kacay oo dhankii jikadaan u dhaqaaqay waliba aniga oo sanqar tiranaya oo liidka raacaya waan istaagay kadibna derbiga ayaan dhinac ugu tiirsaday iyadoo ima aragto way sii jeedaa oo sharaab iyo cunto ayay markaasi ku mashquulsan tahay cabitaan ahaan inay noogu qasto anigu quruxdeedaan iska daawanayaaba waxay xidhan tahay surwaal yar oo ku dhegan garan yar oo gacmo gaab ah madaxana mara yar ayaa ay ku xidhan tahay shaydaanku waa baasire waxa uu leeyahay daawo inta ay kaa sii jeedo oo intaanay ku arkaynin ka faa'iidayso intaa kadib waxaan u dhaqaaqay buu yidhi dhankeedii intii aan dabadeeda soo istaagay baan dhabarka kaga yimid oo aan laabta dhabarkeeda ku qabtay baan labadayda gacmood bartaa caloosha isugu geeyey kadibna bartaa qoorta ee dhegta hoosteeda ayaan ka dhunkaday suxul ayay kelida igaga dhufatay 2 jeer naga fuuq fadarayahow ma nagihii aad suuqa qabqabsanaysay baadna moodaysaa laakiin kama fuqin weli iyaduna waa ay firig leedahay oo in iska kayf fujiso ayay rabtaa buu yidhi cabdal markaas baan ku yidhi xabiibtay waad ogtahay inaan adiga ku jeclahay ee maxaad waxaas iigu leedahay laki horta war baa jiray isiida cashaan inoo diyaarin ee orda halkaasi fadhiiso ayay iigu warcelisay waa miis iyo 2 kursi oo jikada u yaal oo ay ku cuntayso marka ay cuntada cunayso cuntada ay diyaarinaysaa waa in yaroo baasta ah oo xilligii qadada markay cunaysay ka soo hadhay ayay kululaynaysaa oo igu tala gashay inaanu markaasi wada jira ugu cashayno aad baan isu dabacaad naqaan oo way og tahay caawa oo dhan hadday bilo ii kariso iyo hadday inoo kululayso inaanay aniga cunto macno badan ii samaynaynin haddaan hilib cuno iyo haddaan rooti cuno farqi u dhexeeya ma jiro taas waxaa ka sii daran dooq ma lihi dhanka cuntada iyo cabitaanka ah mararka qaar qofka ila socda baan ku idhahdaa walaal wixii aad rabtay dooqaaga inoo dalab miiskii baan fadhiistay iyaduna cuntadii iyo cabitaankii bay markani soo diyaarisay oo soo dhigtay waanu bilownay cuntadii dhanka kale saaxiib su'aalo adag ayaa bilowday waxay igu tiri gabadhii maxay ahayd 1 maxaase idinka dhexeeya 2 xabiibti horta ma ii aaminaysaa ayaan anigu idhi iyo calaacal baan ku dhuftay intay si xanaaqlay gacanta igu soo taagtay bay igu tiri in adeerow joog xabiib iyo cali layne kaliya waxa aan ku weydiiyey iga jawaab intaa markii aan arkay iyo inay xanaaqday baan idhi horta deji kadibna intaan kacay baan bartaa dhabanka ka dhunkaday anigoo afka baasto iyo dufanba ku leh markaas baan ku idhi xabiibti haddaad igaba dayso ka waran su'aalahan iyo dhibkaba intay aad u qosashay ayay igu tiri war iga walla inaan lagaa daynayni naagtaasi iyadaa jacaylka ku noqon ama aniga ayaa jacaylka ku noqon doona midkaayo ayaad isugu lagu dawanaysaa waxaan ku idhi xabiibti gabadha asxaabuun baanu nahay kadibna maanta ayaanu halkaas ku aragnay waxaana iga codsatay inaanu shaah wada cabno wax kale oo naga dhexeeya ma jiraan marka maxaad isaga dhaadhicinaysaa markii aan idin waxay tii markaasi lakiba hadlaysa oo hadalka qaato waxay tiri maxaad isaga dhaadhicinaysay markii aan idin nimid ee afka la taagaysay sidii 2 naagood aad dhex u tahay ama aad dhexdhexaadinaysay adigu midda kale sidee ayay ku dhacday inaad gacmaha isqabsataan markii aan idinka soo dhaqaaqay si dhaqso ah maxaa kale iyada aad ugu hadhay ee aad aniga ii soo raaci weyday bal caqliga aad doonayso inaad iga dhaadhiciso ka waran haddana dhiiggii iyo jinnidihii bay isku kicisay saacaddu waa 9kii fiidnimo magaaladaydu aad bay u fogtahay buu yidhi oo basaska iyo tareenadu inay iga go'aan ayaa laga yaabaa laakiin caawa waa inaan halkani seexdaa si aan arrinkaasi u xalliyo oo aan u ogaado bal halka ay natiijadu ku dambayso haddaba daawade haddii aad gabar tahay miyay saxsan tahay inanta su'aalaha ay weydiinayso laki su'aalaha ay cabdalla weydiinayso haddii aad wiil tahayna cabdalla jawaabaha uu bixinayo miyuu ku saxan yahay 3 su'aalihii la weydiiyay ahayd muxuu inanta isaga dhaadhicinayay muxuu hadalkeedii u beenayay muxuu u soo raaci waayay markii dambe ay soo xanaaqday ee soo tagtay ee inanta kale ugu haray ogowna labadan qof waa 2 muddo dheer soo wada socday sheekada jacaylkooda waxaana arooskoodii ka dhiman 3 bilood oo kaliya haddaba fikirkaagu waa muhiim haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir Mustafa Show sidaas iyo kulanti dambe